Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal soo dhowaada. Maanta waxaan joogaa mid ka mid ah wadooyinka magaalada Hargeysa dib u dhiska lagu wado. Waa wadada marta dhakhtarka weyn dabadiisa marta oo ah wada halbowle ah isla markaana ay baabuurtu ay aad u isticmaalaan ayaa dib u dhis iyo dayactir lagu sameynayaa. Wadadan oo loo sameyn doono buundooyin iyo meelo ay biyuhu ka gudbaan, sidoo kalena la saari doono laami quality-giisu uu aad u fiican yahay sidaad wadooyin hore oo fara badan aad ka aragteen oo ay dowladda hoose ay samaysay. Ayaan doonayaa maanta inaan muuqaal idinka soo sameeyo. Kusoo dhawaada muuqaalkan intuu kusoo gaadho subscribe, like, share. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Wadadan oo kasoo bilaabmaysa iskoyska dhakhtarka weyn ka dambeeya ilaa iyo tiyaatarka magaalada Hargeysa ama dhanka bari ee tiyaatarka agtiisa ku dhammaanaysa ayaa dib u dhis lagu wadaa. Dowladda hoose ayaa dhisaysa wadadan. Sida maalmo hore aad ka aragteen, goobtani waa zero ayaa la doonayaa in laga sameeyo ama goolad, hadba se u taqaanid. Dadka qaar waxay dhahaan goolad, qaarkoodna waxay dhahaan zero bay dhahaan. Lahjadaha iyo afkunba kala duwan. Marka adigu sidii aad u taqaanidba waa meeshaas oo loogu talagalay in baabuurtu ay ku kala wareegaan. Goolad ama yaa laga sameynaya meel ay baabuurtu ay ku kala wareegaan. Si casri ah oo qurux badanna waa loo sameyn doonaa. Halkan aad arkaysaan marmarkii ayaa la saaray koonaha si hadhow toole ayar daamirka loo raaciyo. Sidoo kale wadadan ayaa waxa weeyaan laba haad oo u socda dhanka galbeed u socda, halka wadada number 1 ama wadada main roadka number 1 ay tahay hal haad oo dhanka bari u socda. Marka baabuurta suuqa ka yimaada ama dhanka bari magaalada ka soo gala galbeedka u tallaabaya ayaa inta badan wadadan isticmaala. Wadadani waa wada halbowle, waa wado u baahan in si fiican loo dhiso oo loo dayactiro u baahan. Markaana ku kacaysa kharash fara badan oo ku kacaya walow aan qiimaha ku kacaysa aan garanayn. Sidoo kale wadada cabirkeeda ayaa waxaan ku qiyaasayaa inay gaadhayso ilaa 4 kilomitir qiyaastii ku dhawaad. Face ayaana loo dhisi doonaa siday ii sheegeen inamada injineerada ah ee wadada gacanta ku haya ee dhisaya. Faceka koowaad waxay ka bilaabi doontaa dhakhtarka weyn dabadiisa ama dhakhtarka Talyaaniga ilaa jeelka weyn ayaa la dhisayaa. Halkani waa meelaha biyo mareenka ama drainage-ka ay biyuhu maraan. Dib ayaa iyagana loo dhisayaa. Waxaa jira meelaha ay ka burburtay oo la doonayo in la dayactiro oo dib loo hagaajiyo, kuwa cusubna la saaro oo ay biyuhu ka gudbaan. Marka shaqo fiican ayaa ka socota, maasha Allah. Waa wax lagu farxo weeyaan. Wadooyin aad fara badan ayaa magaalada Hargeysa laga dhisay. Xaafado fara badan ayaa jira oo aan wadooyin lahayn ama wadooyinka aad uga burbursanaayeen, wadooyinkooda dib loo dhisay. Inkastoo aanan beryahan aanan aad wax u duubin oo waqtigu dee uu maaragtay mar walba wax ku xiran tahay saad waqtigu heshid ama aad u soo haleeshid. Insha Allah meelo fara badan oo kalena waan idin soo duubi doonaa. Wadada ayaynu hore sii raacaynaa. Wadada marka hore wada laamiye ay ahayd, marka waxa laga qaadayaa sagxadda, waa la qolof qaadayaa sagxadda ayaa la qaadayaa, base cusub baa la dhigayaa. Dib ayaana insha Allah loo hagaajinayaa. Marka wadadan la dhiso waxay noqon doontaa wado aad iyo aad loo isticmaalo. Iminkana baabuurta aad bay u isticmaalaan, laakiin maanta waa maalin Jimcaha. Maalinta Jimcahana Hargeysa waa laga seexdaa. Waxaad moodaysaa in magaalada laga guuraad moodaysaa maadaama shaqooyinku fasax yihiin. Hadday noqdaan kuwa private-ka, kuwa dowladda u fasax yihiin, wax gaariya ama wax dada inta badan magaalada ma dhex socdaan. Wadadan afka hore way ka xiran tahay. Waa halkan waxa laga dhisayaa buundo ayaa laga sameynayaa ama meel ay biyuhu ka gudbaan ayaa laga sameynayaa. Biyo mareen ayaa laga sameynayaa. Shaqadii ayaa gacanta lagu hayaa. Waa maalin Jimcaha, haddana shaqadu way socotaa. Marka horeba meel waxay ahayd meel biyo mareen ayaa ahayd oo biyo maraan, laakiin dib ayaa loo hagaajinayaa oo la dayactirayaa. Waxaana la saarayaa buundo ayaa la saarayaa biyuhu ay hoos maraan. Wadadan sida la ii sheegay ama injineeradii ka shaqeynaya ay sheegeen, waxaa gacanta ku haya oo dhisaya company wadaniya ayaa wadadan dhisaya. Waxaana noqon doontaa mid ka mid ah wadooyinka magaalada Hargeysa ee ugu quality-ga fiican ama yani qaabka ugu standardsan ay dowladda hoose ay u dhistay ay noqon doontaa. Waxaana laga dhisayaa shacabka cashuurtii laga qaaday ayaa laga dhisayaa. Waxa weeyaan waa cashuurta baabuurta iyo dadka meheradaha laga ururiyo ayaa wadada la inoogu dhisayaa. Halkan saad aragtaan waa la qolof qaaday oo sagxaddii hoose ayaa la qaaday. Maadaama sagxaddii hoose la qaaday, waxay ku cadeynaysaa in wadadani ay noqon doonto wado tacab iyo hawl fara badan la geliyo. Inta badan wadooyinka marka dib loo dhisayo sagxadda lama qaado, laakiin wadadan sagxaddii baa la qaaday si ay wadadani ay noqoto wado u adkaysata baabuurta waaweyn
iyo magaranaysa biyaha faraha badan ee wadada maraya oo aanay hore uga jajabin waqti fara badanna ay wadadani ay noqoto wado loo isticmaalo oo usii jirta. sidoo kale hareeraha ayaa laga baneeyey si ay wadadu ay space fiican ay u hesho. waxaan filayaa xaafadan ama areadan in la doonayo inay ma garanayo ma dowladda hoose ayaa banaysay mise dadkii lahaa ayaa banaystay oo doonaya inay meherada ka dhigtaan. halkan waa la dumiyey ama areado dhan waa la baneeyey, ma huba inay dowladda hoose banaysay iyo inay dadkii lahaa ay banaysteen oo ay doonayaan inay meherada ka dhigtaan. waxay u badan tahay inay dadkii lahaa ay doonayaan inay dhistaan oo ay meherada ay ka dhigtaan. waayo wadadani waxay haysataa cabir ku filan bay haysataa. inta badanna wadadani ma aha wado lagu ganacsado oo meheradaha iyo maaragtay keeriyonada iyo dadka ganacsada ay fadhiistaan maaha. waa wado furan bay ahayd, baabuurtuna ay si xawliya ama speed aad fara badan ay ku maraan marka ay soconayaan. halkan inaga horeysa waxaa laga sameynayaa drainage ama biyo mareen ayaa iyadana laga sameynayaa oo ay biyo maraan, biyo ka gudbaan. marka hawl ayaa ka socota. halkaa horena inaga horeysana iyadana mid kale ayaa laga wadaa. marka wadadani maasha Allah tacab fara badan iyo hawl fara badan ayaa gelaysa. halkan qudheedu waxay meelaha magaalada Hargeysa uga dhibta badan. tog dheer baa la dhahaa areadan. waa meelaha ay inta badan caqabada ugu fara badan ay gaadiidka iyo dadka lugeynaya bay kala kulmi jireen. biyaha fadhiisan jiray, wadada aad bay u jajabneyd, dhooqa fara badan ayaa mar walba taalay. laakiin insha Allah marka la sameeyo waxay noqon doontaa mid aad looga raysto. marka drainage-kan iyo bulacadan ama meelaha biyaha qaada loo hagaajiyo insha Allah isbedel fara badan ayaad ku arki doontaan. xilli roobaadkana waxay noqon doontaa meel loo isticmaalo si caadiya ay dadka iyo baabuurtu ay u maraan. meelaha biyo shubka ah, meelaha qaar waxaa wadooyinka loo sameeyaa biyo shub, meelaha qaarna waxaa loo sameeyaa bulacado caadiya ama drainage aan dhaho. biyo shubun bay noqonaysaa iyadoo qudheedu qiyaasi ah.